step sideedaad waxaan arki doonaa marka sida loo qoro markaasi posts ama articles kadibna website-kaada loogu soo publish garayo. marka haddaba si aan taas u sameyno waxaan tagaynaa marka meeshan ay ku qoran tahay posts kadibna waxaan leenahay markaasi add new and all posts ayaan ku dhufanaynaa marka hore. all posts marka dhada post ayaa hadda noo qoran oo markaasi theme-ka wata waxaan leenahay trash oo iska dileedina. okay kadib marka waxaa dhahdaa add new ayaa leedahay oo post cusub ayaan abuuraynaa markaasi. marka post dhahda inta ayuu ku keenaa qaybaha midigta tusaale ahaan haddii aan sharaxno meeshaas waxa authorkii ayaa ku taalo markaasi oo qofkii postiga qoray magaciisa waaye. meesha permalinka ku haysanaa waa ciwaankii URL-kii postiga. sidoo kale inta waxaan ku haysanaa category hadhow aan arkayna si loo abuuro. sidoo kale waxaan haysanaa waxyaabo kale soo marka hore aan abuurno title-ka ciwaanka aan siino post aan qorno. title-ka marka ciwaanka aan siinayna waxaa loo yaqaanaa article-kan. title noocan ayaa markaas siinayaa. so title-ka marka aad qorto marka waxaad sameynaysaa waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay posts waxaad imaadaa marka waa iska xiray taas waxaa imaadaa featured image meesha ay ku qoran tahay. waxaan rabnaa inaan postigan sawir koro aan siino intay dadku dhufan sawirkay arkayaan. soo waxaa leedahay meeshaas ku dhufo kadib waxaa dhahdaa upload files kadib waxaa dhahdaa select file. soo sawirka thumbnail-ka ugu tala gasho soo qaado waxba ka welwelin step-ka xiga ayaan ku tusaa markaas sida loo sameeyo thumbnail posts-ka ama sawirka kore. soo sawirka marka aad ku dhufato waxaa dhahdaa set featured image kusii dhufo oo hoos. okay sawirka waa kaas xaggaas ayuu noogu muuqdaa. marka mid sameeyo waxaa sameysaa title-ka hal mar koobiyey right click copy. waxaa sameysaa sawirka isa asliga ah lee ku dhufo marka haddana sawirka xaggaas ku dhufo marka meeshan ay ku qoran tahay alt tagaysta waxaan siinaynaa right click aan leenahay kadib paste ama control v. macnaha ciwaanka waxaan siinaynaa postiga markaasi si hadhow sawirkan googlaha looga arko markaasi aan dad markaasi traffic iyo waxaas aan u helno. soo marka xaggaas kusii dhufo meeshan uu ku leeyahay marka categories aan ku dhufan iyadana waxaan arkaynaa si categories loo abuurto. waxaan leenahay add new category meeshaas category-ga magaciisa category-ga aan abuuranayna waxaa loo yaqaanaa waqti kow hore. marka hore waqti aan abuuranayna kadib waxaa leenahay add new category. okay oo uu noo sameysmay. okay waxaan iska qaadaa haddana meesha ku dhufo categories kala sameyso. soo midkan kale ayaan sameysanaynaa haddana waxaan leenahay add new category. hadhow hal category la postigan uu qaadanaa laakiin dhowr xaba ayaan abuuranaynaa. soo mid kale ayaan ku daraynaa kaba soo qaad waxaan leenahay waana camal. okay marka intaas aad sameyso marka midkan waanada ayaa postigan qaadanaa tigaan saaraynaa bas inta kale waa ka qaadaynaa. okay post walba categories halkaas ka siin kartaa. aan aragna marka meelahan maxay yihiin blogyadan iyo waxyaabahan wuxuu ku leeyahay meeshan type to choose a blog wax qor ama blog dooro. marka haddii aan meeshan plus ka furno waxaa ujeedaa waxaan oo dhan inaan haysano hal mar haddii aan dhaho fiir browse all waxaa ujeedaa marka meeshan inaan dhowr waxyaabood aan ku haysano sawir ha ahaata link si loogu soo daro waxyaabo badan. marka intaan ku dhufanaa tusaale ahaan qoraal yar ayaan qoraa. haddii aad rabto inaad post qorto sidan lee u qoraysaa halkaas ku dhufo kor waa h1-ka ama ciwaankii postiga meesha kugu xigtana waxaa ku qoraysaa hadalkii si markaas h2 iyo sawiro iyo muuqaal lagu soo darsado dhan waa arkayna oo step-kan si fiican ugu baranayna. markii aad postiga marka gaaro okay markii aad postiga sidan u qorto marka maxaa sameynaysaa waxaa leedahay enter bisa leedahay calaamada plus ku dhufo. marka waxaan arkaynaa si loo soo geliyo markaan kaba soo qaad sawir camal si loo soo geliyo waxaa ku dhufanaya meesha ay ku qoran tahay image calaamada plus ku dhuf image haddana waxaa dhahdaa media library. soo marka upload files waa dhihi kartaa laakiin anigu sawirkaas hore ii yaalan iska soo qaadanaa. marka sawirka ku dhufa selected okay fiiri marka waa kaas geesaha marka fiiri sawirka waa ka yareyn kartaa waa yareyn kartaa waa jiidi kartaa laakiin sida caadiga aan halaas ku fiican yahay saaid ha u yareen aadna ha weyneen. okay marka intaas sameysa marka step ku xiga sawirka leh adigoo dhex taagan enter iska dhe asiga markaas waxaa lahay meel cusub ku geynaa haddana plus ku dhufo. marka waxaan arkaynaa kaba soo qaad si loo isticmaalo heading-kan. heading-ka waa h2 aa sameysmaysa. hadda h1 waa ciwaankii postiga waa h2-ga marka idan waa taasaa asaa kala lahan h1 h2 h3 h1 iyo h2-ga marka mar walba muhiim inaad isticmaalayso markii aad khudbo tirinayso camal. markii aad tusaale ahaan marka waxaa sameysaa calaamada plus ku dhuf haddana waxaad doortaa meeshan listiga ay ku qoran tahay. listiga marka waa arkaynaa isaguna muxuu yahay. tusaale ahaan listiga marka haddii waxa ayaan qoraa fiiri marka khudbo markii aad rabto inaad tiriso camal listiga la adeegsada isaguna nambaro uu leeyahay bullets waa uu leeyahay dhibco.
soo haddii macnaha Microsoft Word aad wax ku qoraysa kana waa iska fahmaysaa. soo marka intaas aan sameeyo tusaale ahaan waxaan sameynaa qoraalka hal mar aan koobiyeyna marka waxaan meeshaas waxaan ka dooran karaa waxyaabahaas ama haddii kale intaan qoraal koobiyeyn aan ku tuso meeshaan fiir hal mar nambaro u bedeli karaa hadda dhibcahan saa ujeedo wuxuu isku bedelay numbers waxay adiga kala hoos dhigi kartaa oo markaasi dhibcahan iskaga dhaafaa hadda marka waxaad sameysaa marka tagastigan meesha ku qoran tusaale hal mar highlightan saara waxaan leeyahay bold kaligiis tagastigaas waxaan ka dhigi karaa markaasi waa weyneyn karaa Italian ka dhigi karaa waa jiifi karaa ama haddii kale labadan horta marka hore aan ka qaado meeshan kale marka iyadana link loo adeegsadaa tusaale ahaan haddii arabti inaad link aad soo qaado inta ayaad soo dhigaysaa hadda aniga ayaan tusaale ahaan ku tusaa waxaan soo qaadaa linkii website-keeda linki web dhisa hal mar soo koobiyeyna waxaa leeyahay control C ama right click copy dha haddii kale soo waxaan u adeegsanaa dadkii inay arkaan rabaa maanta dhan right click kadibna paste dha hadda fiir marka qofka dhow marka ku dhufto postiga linkigan tab cusub ayuu fur ayaa leedahay soo calaamadaas la tick service open in a new tab kadibna halkaas koro submit ee ku dhufo fiir marka hadda meesha waxa isku bedelmata markaasi oo waxay isku bedeshay meel markaas link oo u yaala camal okay tagastiga halkaas kalarkiisa waa ka bedeli kartaa ay ku qoran tahay tagasti kan laakiin hadda si ila tahay ma bedel maayo sababtuna waxay tahay link waaye tusaale ahaan midkaas hal mar highlight saarayna head h2ga waxaan tagaynaa meeshaas kalarka fiir marka hadda waa bedeleynaa guduudan ku bedelnay waxaa kaloo sameyn kartaa markaasi tagastiga isla asiga kusii dhufo meesha hoos marka waxaan ku haysanaa haddana wax la typographiga fiir farta waa weyneyn kartaa okay intaas waa la ekeysiin kartaa soo h2 h3 h4 h6 waxaa rabtaa ka dooran kartaa marka soo h2ga laakiin sida saxda ahna loogu talagalay marka faraha ka qaad marka intaas sameys marka waxyaabaha background waa bedeli karnaa iyaduna haddii aad rabto meesha background ku dhufo kadib meesha kalarka xaggaas ka bedelaysaa kalar xogaa waxaan dhigaa kaba soo qaad tagastiga madow ee waxaan ka dhigaa background cadaan kaas camal okay background xaggaas ka bedeli kartaa isla hadana calaamadii ayad ahayd ku dhufo calaamadan ku dhufana marka waxaan meeshaas ku sii qoraa YouTube waa kaas isaga YouTube-ka ku dhufo marka linki inaan soo dhigno ayuu naga rabaa marka waxaan sameynaynaa tab cusub ayaan furaynaa tab cusub marka furno YouTube aan dhex tagaynaa marka hore okay video YouTube haddii aad rabto inaad ku soo darto marka tusaale ahaan waxaan rabaa YouTube videogan inaan ku soo daro waa iska soo qaadanaa right click aan leeyahay dul tagaa bas kadib waxaa dhahdaa copy link address oo macnaha URL-ka videogaas rabna inaan koobiyeyno haddana inta imaanayna meeshaan dhexda ah waxaan leenahay right click kadib paste oo macnaha linkiga soo celi kadib waxaa dhahdaa marka embed meesha ku qoran tahay ku dhufo video waxaan rabnaa marka inuu meeshaan ka soo muuqdo wax yar sug asiga soo muuqanayo okay video kaas marka soo marka intaas aad sameyso waxaa sameysaa marka xigta markaasi tags hal mar haddii aan ku dhufto markaan waxaan arkaynaa si tags loo isticmaalo waxaan ku dhufnaa dhinacaan midigta tags ku dhufo tagska marka muxuu yahay tagska marka aad adeegsanayso postigaada waxay ka caawinaysaa Google in laga helo markaasi laga arko marka dadka raadiyaan so always tags adeegso stebyada kale aan ku arki doonaa si website-kaada loo optimize gareeyaa ka walwali waxaa dhahdaa marka tusaale ahaan ciwaanka postigan soo koobiyeyna waxaa leen right click copy ama control C ama control V kadib waxaa dhahdaa comma marka comma haddana waxaan qoraa kaba soo qaad tag gala ayaan qoraa tag marka qorto waxaa dhahdaa comma haddana mid kale qor mar aan qoraa markaas waxaa leeyahay comma okay marka intaas aad sameyso marka tusaale ahaan waxaa kaloo noo dhiman meeshan kor haddii aad fiiriso meesha details haddii aad ku dhufato waxaa arkay inta uu eray oo postigan kooban yahay inta markaasi tusaale ahaan characters waa xaraf inta eray waa 27 eray waxaan qornay ilaa hadda headingka waa hal waa kaasana halkaas kaas waaye marka soo meeshas kale haddii aad ku dhufato waxaa arkaysaa geeska oo ka arkaysaa macnaha wejiga hore markaas waxaa maleynaa meel walba inaan sharaxna markaasi meeshas hore marka iyaduna save draft haddii postigan arabti inaad draft ahaan u publish garayso xaggaas la ku dhufana oo aadan publish dhihin hadda waxaan leenahay publish aan leenahay oo publish gareynayna meeshas ku dhufo marka intaas sameyso marka meeshan waa iska xiraysaa hoos waxa kaaga soo qabanaa uu ku leeyahay view post ayuu ku leeyahay laakiin waxaad dhihi kartaa preview ayaad ku dhufan kartaa hal mar meeshan fiiri waxaan ku dhufanaa tableedaan leeyahay hal mar ii door oo dadka tabletka haysta postigan markay akhrinayaan saas ugu muuqanaa macnaha
hadhow waa arki doonaa si loo habeeyo farta boostiga loo kasta waaniyo waxyaabahaas oo dhan. haddana waxaan arkaynaa mobileka isaguna saas ugu muuqanaa markaas dadka mobileka haysta markaasi. okay marka waxaa dhahdaa desktop kusoo laaba marka saa boostiga aan u daawana aan qornay waxaa dhahdaa preview in a new tab cusub kuu furaa markaas oo ku geynaa good. soo hadda saa ujeeda boostigii markaas aan qorna waaba kana saan buu u egyahay. okay boostigan qorna saan u egyahay qofkii rabo markaas maxaa dhahay wuu akhrisan karaa. laakiin hadhow waxaan imagekan gadaal saarin waxaan oo dhan hagaaji doona oo si qurux badan oo kusoo baxaa. hadhow waa customize gareyn doonaa steebyada xiga soo haka walwalin. marka waxaa sameysaa waa iska xiraynaa kuwan. marka waxaan sameynaa marka xoogaa boostigan wax badan aan ku daraa oo waa qoraal. marka aan dhameeyo qoraalka markaas dhowr waxaan kusoo daro dhowr eray aan isku soo laabanaa. soo hadda waa dhameeyey markaasi dhowr eray ayaan kusoo daray wax badan ayaan kusoo daray. haddii marka aan ku dhufto calaamadaas detailska waxaan hadda aan maraa 693 eray. soo marka waxaa dhahdaa update mar walban erayada aa qorayso boostiga ha dhaafaan 600. kadib meeshaan hoose marka hoose imaa view post waxaa dhahdaa right click kadibna waxaa dhahdaa open link in a new tab cusub oo ku dhex geynaa markaasi. okay saasoo hadda boostigu u egyahay. marka waxaan ku tusaa plugin cajiib ahan oo boostigan dadka akhrista ay sii share gareynayaan si loo helo. waxaa tagtaa qaybta calaamadaas madow ku dhufo waxaan tagaynaa qaybta dashboardka ama baaginiga ayaan tagaynaa. waxaa dhahdaa marka meeshaas ay ku qoran tahay waxaad ku dhufataa plugins kadib waxaa sii dhahdaa anew pluginka u baahanaa waxaa loo yaqaanaa saasi share. meeshaas ku qor saasi share saasay u qoran tahay. kadib waxaa dhahdaa enter. soo pluginka u baahanaa waa kana keliya waxaa dhahdaa markaas install now kadibna waxaa dhahdaa activate. okay inta ayuu ku keenaa marka dhinaca bidixdaad hoos kaaga soo baxaa waa kaasa asiga lee ku dhufo markaasi. okay intan dhexkeen marka meesha marka hore waxaan iconka qaabka aan u rabno noocee waa ma round ama square nooca u rabto. soo aniga hadda round ayaan iskaga dhaafaa. marka hore hoos soo deg pageka maxaa kaloo laga bedelaa waxba kama bedeleyno. waxaan tagaynaa midka ku xiga standard interface kana gey kana marka wax badan aan ka bedeleynaa. marka koobaad waxaan bedeleynaa meesha ay ku qoran tahay titleka ama ciwaanka. hadhow waa ku tusaa qoraalkas meesha kasoo muuqanaa. marka waxaa ku qortaa kaba soo qaad asxaabtaada la wadaag qofka markuu macnaha linkigan korkiisa waa ciwaankiisa inaa qofta u sheegto waa macnaha linkiga waxa markaasi uu ku sameynayo social media. tusaale marka aan hoosan usoo degaynaa socialka markaasi noo soo baxayo kuwaas. soo marka Pinterestiga iyo waxyaabo markaas waxaa jira dadka aysan isticmaalin oo boostigan aysan ku share gareynin. marka waxyaabahaas oo dhan waxaan sameynaynaa waa iska bixinaynaa. waxyaabaha commonka sida Facebooka, Telegramka, Twitterka, WhatsAppka inta isticmaalaan dadka aan adeegsanaynaa anagu. okay kadib waxaan kusoo daraa marka Telegram marka kuwaas oo dhan aan iska baxsho. soo waxaa sameysaa marka hoos intaas marka aad sameyso hoos soo deg meeshan uu leeyahay markaasi horizontal alignmentiga ama positionka waxaa dhahdaa bottomka si macnaha boostiga hoostiisa rabna inuu kasoo muuqdo kor ma rabno dhinaca bidixna u dhaaf. okay meesha imaa marka xagoo kasoo muuqanaa waa post space waa pageka oo dhan ma rabno boostiyada bes ha kasoo muuqdo waa muhiim taas bes tika kuu saarnaato. intaas markaa qabato waxaa dhahdaa marka save changes soo marka xigta maxaa sameynaynaa midaan iyadu waa active marka on off aan iska leenaa waxaa la floating interface waa midda geesaha markaas kasoo muuqanaysa meeshaas ofta ka qaad iyadu maba u baahnin gabi ahaanteeda. soo marka waxaan hoosaan imaanaynaa waxaan leenahay markaas save changes ayaan leenahay. marka intaas aad sameyso boostiga kusoo laaba hadda marka hal mar hoosaan usoo dega saa ujeeda hadda marka waxba ma laha. marka hal mar aan refresh gareynaa. soo waa kaasa haddoona kasoo asxaabtaada la wadaag qofka halkaasoo ku dhufanaa. haddii kale marka calaamadaana ku dhufanaa haddii markaasi oo social media badan uusan inta kasoo muuqan marka ku dhufto fiir boqolaal social media kaloo sii dooran karaa. hadduu oo kuwaan rabo tusaale inuu Facebook ku share garay Facebook la ku dhufanaa Facebook toos u dhex keena ama Instagram ama Twitter. soo marka hadhow aan arki doonaa pagekan boostiga si loo hagaajiyo fartaan loogu weynayo waxyaabahan dhan. marka aan u gudubno step xiga oo aan markaas sida loo sameeyo thumbnail kore ama sawirka kore ee markaas boostiga.